بسم الله الرحمن الرحيم أنا عمر عبد القادر أحمد فقي وحن ربا maanta saakayto in halkan uga tacsiyeeyo eheladii iyo qarabadii iyo saaxiibadii geeridii ku timiday madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday xalayto magaalada Nairobi waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannada firdawsa geeyo dambigiisa dhaafo kitaabkiisa gacanta midigta ka siiyo waxaan kaloo u tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo Cali Mahdi Maxamed wuxuu ahaa nin siyaasadda Soomaaliya qayb wax ka soo qaatay taariikhda wadaniyada Soomaaliyeed qayb wax ka soo qaatay wadanka Soomaaliya aad looga yaqaan shacabka Soomaaliyeed aad u yaqaanaan magac weyn ku dhaxlaha gaar ahaan magaalada Muqdisho marka waxaan leeyahay nin muhiim ah oo weyn baa naga dhintay waa u duceynaynaa dambigiisa Ilaahay ha dhaafo samir iyo iimaan eheladiisa saaxiibadiisa iyo qarabadiisa iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta joogaana samir iyo Allah ka siiyo waxaan rajaynaynaa in meedkiisa la keeno oo aas qaran loo dhigo oo si weyn loo maamuuso oo si weyn loo xushmeeyo loo qadariyo aaskiisana laga soo qayb galo marka insha Allah taala waxaan rabnaa in Cali Mahdi Maxamed oo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya soo noqday siyaasadda Soomaaliya qayb wax ka soo qaatay iyo wadankan halgankii loo soo galay inuu dawlad yeesho waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ummadii uu ka geeriyooday gaar ahaan qoyskiisii iyo saaxiibadiisii iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan marka insha Allah taala waa sugaynaa meedkiisa in la soo qaado si weyn loo maamuuso la soo dhaweeyo marka insha Allah waxaan leeyahay sabir iyo iimaan dhamaanteen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh